بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa maanta booqasho dalka ku yimid safiirka Xigeenka dawladda Britain u fadhiya dalka Ethiopia Mr. Chris Allen oo dalka hore u yimid marar fara badan arintan oo muujinaysa xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Britain iyo Somaliland cooperation kale dhinaca nabadgelyada leh xagga dhaqaalaha iyo guud ahaan dhinaca xagga horumarka. Britain waa dalka ugu badan ee mucaawano siiya Somaliland waxaanu la leenahay dawlad ahaan iyo shacab ahaanba xiriir soo jireen ah oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi si isku dheelitiran ay labada dal u shaqeeyaan. maantana booqashadiisa halkan dalka ku yimid oo madaxweynaha la kulmay waxay la xiriidhaa sii kobcinta iyo xiriirka labada dal. Britain waa saaxiibada ugu dhow ee dalka Somaliland oo dibadda ku leeyahay wadamada reer galbeedka waxaanu rajaynaynaa xiriirkaasi inuu sii kordho. waxa bariyaan soo baxay murano iyo hadallo aan xaqiiq ahayn oo sheegaya sidii wax xiriirka Somaliland iyo Ingiriisku uu imika sidii hore ka khafiifsan yahay. arrintaasi waa arrin aan jirin, waa arrin ka fog xaqiiqda. sidaan sheegay Britain waa dalka ugu badan ee mucaawano siiya, waa dalka ugu badan ee xagga amniga iyo nabadgelyada kala shaqeeya Somaliland. imikana waxay nagala shaqeynayaan dhinacyo cusub oo xagga dhaqaalaha iyo horumarka uu badan yahay. marka waxaan jecelahay arrintaa in loo fahmo waxaan ku soo dhaweynayaa Mr. Chris Allen to say a few words. Thank you very much, Mahatsan. I should begin by wishing a very happy Islamic New Year to all Somalilanders from me and from the British people. I think the phrase is something like Sened Wa'an, but I may have got that wrong. So happy New Year. We've just had a very rewarding meeting with President Siilaanyo and with his team of ministers, in which we reaffirmed the United Kingdom's commitment to its strong and historic friendship and relationship with Somaliland. The strength of feeling about this relationship in the United Kingdom should not be underestimated. We're committed to a number of issues around the Horn of Africa, including human development, security and stability. But we're also deeply committed to this historic friendship between our peoples, and I wanted to reaffirm that this morning with the President. We talked about some of the cooperation that the United Kingdom and Somaliland share. We talked about our development relationship. I'm very pleased that we'll soon be launching here in Hargeisa the Somaliland Development Fund. It's a new programme of bilateral development assistance which the United Kingdom has helped drive here in Somaliland and will for the first time align the donor community's funding and efforts behind Somaliland's own national development plan. We hope to launch that here in Hargeisa in just a few weeks' time. On security too, we find ourselves one of Somaliland's closest supporters, helping your security forces and your government maintain stability in this region. That's extremely important to you and it's extremely important to us. And on the politics, we remain, as I've said, we hope, Somaliland's closest friend in the international community, committed to supporting your efforts to secure Somaliland's stability and progress in the region. So those were the brief words that we exchanged this morning with the President. We're very grateful for his time, and once again, we remain 100% committed to our friendship with Somaliland.